بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gacmaha la isula tagay video ugu dambeeyay Xamaas ay soo saartay waxaad ku arkaysaa wax ay reebanaysa inayna jirin arintaas isdul taagi doona biin Allah ta'ala ninkii bin Ghafiir ahaa oo u tagay dadkii asagoo hadee sida u caynaya kuna tilmaamay argagixisay inay yihiin qoladan waa isdul taagi doona waa kuwan ayagoo tiro badan iyo sidaas oo kale ayagoo maanta sameeyay inay markaa ka afxirtaan wax walba cunto iyo cabitaan ah ayagoo dabcan tusay caalamka la jirid ay la jiraan reer Gaza iyo sidaas oo kale sharci darada lagu haysto ayagoo laga soo qabtay biyaha internationalka ah tan waan ka hadli doonaa biin Allah ta'ala sidaas oo kale mudaharaadyo kala duwan oo caalamka wadamo kala duwan sida u hareeyay arimahaasi tafaasiisha insha Allah ta'ala isku taagi doona hal mar si aan ku bilowno doontii ugu dambeysay ee dabcan Gaza u soo dhawaatay iyo Falastiiniintu indhaha saaray oo duubaya واتاسا دونتا سيفي عنا ما أركيسان طبعا لكن أي فوقتها هي هذا فوقتها هي وحي كسر دواني سا حيبت غزة كسر داشها أي كسر دواني سدين عي غزة وحد أركيسان مركا إن نوقر قاران أوي مادين سيدا سوليه طبعا وحين الجبين يساوليه عنا خفتين تلا ساري غزة معناها عروتن ee dumarka meesha fadhiya ayagana waxay sugayaan ay markaa indhahana ku hayaan doontaasi iyo sidii u soo dhawaanaysay dabcan doontaasi waxay noqotay sida la leeyahay mucjiso maxaa yeelay maraakiibtii Israa'iil ee 20 iyo dhowrka ahaa helicopterada droneskooda kuwii kala mashquuliyay mid halka u fakata laba isu raaceen ilaa 46 doomood qaar yar yihiin qaar waaweyn yihiin ay ahaayeen sidaa dadka midan dhus waxay ka soo dhaxday dhaxdooda kadibna ayadoo hadde xeebtii wax yar u jirta arkaysaan ayaa helicopter iyo doon kuwa dheereeya ah ayaa u imaanaya sidii ku kaxeeyeen markii ugu dambeysay la qabanayeen waa taasa watii ugu dambeysay ka hadlaynaa sidaas oo kale midaasi waa taa waxa ay noqonaysaa marka arin horta Israa'iil sidii filaysay ka duwan maxaa yeelay wadamada ugu badan ee caalamka ay horta dadkan ka socdaan dhinaca Australia ku xiji New Zealand macna waxaan ka hadlaynaa dhinaca iyo bariga fog ayaan ka hadlaynaa dhinacan ilaa Mareykanka Yurub soo dhaxmar Turkiga sidaas oo kale ku xiji almuhim mudaharaadya waxay isu heestaan maxaa ka galay maanta aan hadlayno masaajidda jimcaha iyo maxaan ku rahay jimcaha ku horba ma ahan hatta muslimiin waxaan ka hadlay waa gaaladii ayaa mudaharaadyo aan caadi ahayn Turkiga bal waxay ziyaadiyeen oo ziyaado ah dhinacaasi iyo sidaas oo kale hatta Spain Belgium sidaas oo kale in safaaradii Israa'iil sida loo hareereynayo mudaharaadyada ciidamadii marka yani ma doonayaan in safaaradda la dhibaatay oo kala tusaalaan ama lagu soo dhawaado marka ciidamadii eerida xirtay dhinaca Jarmalkana booliiskii waxay ku xadgudbayaan sida inta badan la arkayo warbaahintan ay soo tabinayaan mudaharaadayaasha ay ku xadgudbayaan dhinaca kale waxay cuntadii ka joogsadeen subaxan oo ay dhaheen wax cunto aan cunayna malaha wax cabitaan aan cabayna malaha maxaa yeelay sidan lagu soo qabtay waxay ahayd sharci darro lagama soo qaban dhul Israa'iil leedahay ibada Israa'iil leedahay waxaan laga soo qabtay badda fog ee caalamka oo dhan wada leeyahay labo waxa anagana nagu haaya yani reer Gaza lagu haaya oo reer Gaza waxa lagu haaya dhacfan ayaan rabnaa inaan dareeno Israa'iilna ay dareento arintan waxay dhalisay markii loo yara tira badan oo reer caalami ah inay arinta soo faragastaan dabcan wax ma qaban karaan laakiin muhiimadda iyana ka hoos bixin waa hal in caalamka oo dhan insaal loo tuso Israa'iil iyo dhibaatada ay hayso sidaas oo kale dawladaha pressure markaasi la saaro taasoo kaliftayna dabcan Falastiin in la aqoonsado hadda tusaale ahaan Israa'iil dawlad aan cambaareyn jirin ama dawlad aan ku dhiiran jirin inay hadda ku dhiiradeen tusaale ahaan marka almuhim arintan hadday sida ku socdo dawlad walba waxay ku qasban tahay hadda sidoo ahaan yani Spain oo kale iyo Belgium waxay u yeereen safiirada fadhiya wadamada way u yeereen ayagoo dabcan raba inay tafaasiil ka bixiyaan wixii dhacay iyo sababta loo qabtay meesha laga qabtay inay sharci darro tahay iyo wixii kale aan u soo gudubno bin Ghafiir waa kuwan argixisada oo leeyahay ayaan waxay dhihi doonaa marka alaabtooda ku daldalaya waa bin Ghafiir
wuxuu markaasi galayaa mid ka mid ah doomahay wateen ayuu gudaha u galayaa المهم waxaan oo dhan bin Ghafiir hadda waa taqaan idin kama sheekeenayo waa nin adiga xad jir ah oo hadda soo galay waxay wataan waa kaasa arinta marka la yaab kale waxay tahay way qarinayaan dabcan doontan wuxuu ilaahay qadaray inay noqoto tii waday caruurta caanahooda ilaan in badan oo kamid ah maraakiibtan ama doomahan waxay wadaan waa caruurta cuntooyinkooda nafaqada caanahooda maxay kada tan inta ugu badan waxay waday caruurta caanahooda waxa kaamil marka ay qabanayso waa maxay caruurtii caanahooda marka Israa'iil maxay la dagaalamaysay oo ay diidaysay ay intaas oo maraakiib intaas oo ciidamo u dirtay caruur caanahooda he dad wada inay ayagana qabato argagixisa ku tilmaanto caruurtii caanahoodan ay ku tilmaantay yacnihi waa contraband ila ma gelin kara wixii la midka marka ninkii bin Ghafiir ahaa dabcan sidaas uu sameeyay waa normal oo ku dhibcad badsanaya sida inta badan la og yahay waa nin xaq jir ah oo waxaas aan ka gaban sidaas oo kalena asagii hadeertan dabcan naftirkiisa lagu arkida kaliya lagu arkay iyo sidan uu ula dhaqmaayo dad hadee yani marka la fiiriyo caalamka dadka ugu sarsareeya ee مثلا Europeanka iyo Mareykan iyo adduunka maadaama ay yihiin hatta waxa ku jira qolay yahuudaha ku jirta marka almuhim dhinaca wuxuu kala kulmi doonaa waa maxay barashar kale marka Falastiiniinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu gargaaraya sida haday u socotana muslimiinta iska dhaafe inkastoo inaan mudaharaadi karin muslimiinta oo wadamada haday carabta ha noqdaan kuwa islaamka ha noqdaan xaaladooda iska tabcaan tahay laakiin gaalada Ilaahay u soo diray dhinaca waa taas maxaa dhacay oo lagu arkay videogii ugu dambeeyay Hamas ay soo saartay ugu dambeyn aan ka hadalna asagana horta inta badan waxa la isku raacsan yahay Hamas hadda xaaladda ay ku jirto ayadoo ay aad u adag tahay haddana hubka isticmaalayso oo darad inay duqaysay gudaha Israa'iil ay gantaalo ku tuurtay marka laga tago ayaamahan waxa ugu badnaan ay samaysaa markay ciidamo meel u dirayso inay yihiin kuwa qaar kamid ah laazim ay tahay kuwan soo laaban oo shub intay dhahan ciidamada Israa'iil yani illa ay meesh ugu dambeysay la gaaraya haday noqoto in ayaga naftirkooda lagu dilo meesha oo macnaha xog ku gal ay sameeyaan ciidamada marka waxay sameeyeen dabaabadan iyo gurigan oo ah saldhig weyn oo ciidamada Israa'iil ay Gaza ka degan yihiin ay isku shubeen si toos yani dabaabada horta yani laba ayad arkaysaa oo dabaabada saaraya bahashi qarxiisay miinadii markay saaraan laba nin kale total ahaan kaamil waxay qabanaysaa 5 inay yihiin iyo qofka duubay ma ahane nacmo inkastoo qofka duubay naftiisa uu la socdo nacmo waa adiga 4 marka ka lagu dar waa 5 waa sax shantooda marka waxay u muuqdaan in ay yihiin kuwa aan soo laabanin dabcan laakiin way soo laaban doonaan maxaa yeelay hadee kaamiradi waa kaasa video waa la soo geliyay wixii la midka marka waxay galayaan goobta marka ay sida u galaan miinadiina lagu rakibo waxayna ka soo baxayaan ka hoos bixin video lagu arkayaa dabaabada meel aan saa uga fogeen xogaa yar adiga soo soconayaan tunnelka ay ka soo baxayaan ilaahay amarkiisa waxa cajiib ah meesha ay ka soo baxayaan waa meel cagaf sida ay geeskiisa u taagan tahay oo ay qodaysay meel walba oo Israa'iiliinta ay qodaan qaar way duugaan qaar maxaan ku dhacayaa qodo oo hela tunnelkii haddana waa kaasa waa laga soo baxaya jugtiya ka dhacaysa ama maxaan ka dhacay macnaha weerarka ka dhacaya marka waxa lagu tilmaamayaa Hamas oo macnaha ku dagaalamaysa ilkaha iyo gacmaha iyo cijiyaha oo waxna aan reebanin ayaa lagu tilmaamaya Aljazeera xataa sidaas oo kale sida hadalka sidaas u dhigaysa macnaha haddii wax la reebta ma lahan waa laga xoog badan dhinac walba haday noqoto macnaha ciidamo haday noqoto technology haday noqoto wax walba yani waa laga xoog badan marka almuhim ayagana waxay tusayaan macnaha wax aan harayna ma lahan waxna celinaayo ma lahan haddii aan dhimanno isma dhiibayna wixii la midka dhinaca kale ilaa hadeertan wax akhbaar ah lagama hayo Hamas khaasatan sugidii la sugayay inay ka soo jaabto maalmihii loo qabtay maalmahan dabcan hadda maanta ugu dambaysa waan arkaynaa waxa soo bixi doona ama ay dhihi doonaan intaas aan ku soo koobaya salaamu alaykum wa rahmatullahi